الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى وحين ولاقي دونا برامج كدوان برنامج تاني هره برنامج كاسو غرفين بوك إنه غرفينو كرشانينو علمي كان كلا صبحنا بواق أقون علمي كساليسان برنامج كذي wuxuu qeyb ka yahay barnaamij horumarinta bani aadamka iyo ummadeenu inay la qabsato wax akhriska iyo aqoonta si aan u noqono bulsho horumartay. Buugga ugu horeeya insha Allah taala ka hadli doonaa waxa weeye barnaamijkan aan ku furi doono waa buug la yiraahdo aftahan saa ka dareemaysaan waa buug ka hadlaya fanka fagaarka hadalka habboon qaabka wax loo jeediyo qaabka ummad loola hadlo qaabka dad loo qanciyo waxaas dhan ka hadli doonaa. buuggan waxaa qoray laba aqoon-yahan midka koowaad waa Maxamed Cabdicasiis Maxamed oo bootaan loo yaqaano midka labaadna waa Cabdiqaadir Yuusuf Xoosh. buugga markay isugu tagaan laba maskaxood uu ka saameyn badan yahay ama ka aqoon badan yahay marka uu hal qof qoro. buuggani wuxuu ka kooban yahay 180 baal ama bog ayuu ka kooban yahay. waa buug runtii aan aad u weyn xagga xajmiga laakiin cilmi aad iyo aad fara badan baa ku jira. buuggani wuxuu si fiican u qaadaa dhigayaa yacni sooyaalkii taariikhdii iyo qawaacid fara badan oo falsafad ah dhaqankii iyo suugaantii Soomaalida oo la xiriira barnaamijka fanka fagaarka hadalka. buuggan wuxuu ka kooban yahay 5 cutub. cutubka koowaad wuxuu kaga hadlayaa taariikhdii iyo sooyaalkii fanka fagaarka hadalka isagoo qaabeyn doona oo kasoo bilaabaya taariikhdii Giriiga isagoo ku xijin doona Yuunaankii nimankii la odhan jiray Roomaanka isagoo kusii xijinaya Carabta iyo aftahanimada xiriirka ka dhexeeyey isagoo Islaamka iyo aftahanimada calaaqada ka dhaxaysa ka hadli doona marka ugu dambeysana Soomaalida iyo aftahanimada ayuu ka hadli doonaa. nimankii la odhan jiray Roomaanka waxay ihtimaam badan siiyeen oo ku dadaaleen fanka fagaarka hadalka inay xoogga saaraan. waxay u samaysteen gobol lagu barto maxaa yeelay wuxuu ahaa fanka ugu fiican ama cilmiga ugu habboon buu ahaa. miyaa loo dhashaa cilmigan ama aqoontan mise waa la bartaa oo waa la kasbadaa? waxa weeye afkaar badan waxay sheegaysaa in loo dhasho balse in la barto ayaa iyaduna badan. marka doodaha la gelayo haddii maxkamada la gelayo haddii cid la iska dhicinayo dagaalka ugu cuslay adduunka soo maray dagaalka afka ayaa ka mid ahaa. sidaa awgeed baa xoogga loo saarayey aftahanimada iyo afmiishaarnimada iyo afmaalnimada. qof waliba intuu hadli karo hadalkiisana qurxin karo ayaa u hadlayay. miisaan baa la saarayey xikmadda iyo suugaanta iyo falsafadda si shaygaasi loo qiimeeyo inuu yahay shay meeshiisi gaadhay. taariikhda labaad ama qolyaha labaad ee iyaguna xoogga saaray aftahanimada buugga ka hadli doono waa qolyihii Giriigga la odhan jiray. Giriiggu saad la socotaan waxay ahaayeen waxa ka soo baxay rag badan oo xikmad badan oo aftahamiin ah oo afmaal ah. waxaa ka mid ahaa ninkii la odhan jiray Aristo ama Aristotle. waxaa ka mid ahaa Aflaaduun ninkii la odhan jiray. rag badan baa ka mid ahaa. waxay u samaysteen goobo iyo madaaris lagu barto aftahanimada. iyaguna waxay ahaayeen ummaddii iyaguna xoogga saartay aftahanimada iyo barnaamijkaas. qodobka saddexaad uu ka hadlaya ama qolada saddexaadii waa islaamka iyo aftahanimada. saynu la soconno yacni diinteena islaamku waxay soo dejisay qur-aankaasi waa waxa ugu fasiixsan shayga ugu fasiixsan ee adduunka dul saaran wey. yaa lagu soo dejiyey shakhsiga ugu fasiixsanaa oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. walidaalika rasuulku markii uu subaxii intuu tegey oo buurtii Safa uu fuulay ayuu carabtii la hadlay iyo ummaddii meesha isugu timi. wuxuu dadkaygow haddaan idinku idhaahdo buurtan gadaasheeda col farda ku joogaa soo socda ma iga rumaysanaysaan? waa in aftahanimo ah. markaasay yidhaahdeen haa been kugumaanaan baran annada ceeb hore lahayd adiga ku saameynaysaa kugu soo laabanaysa.
markaasuu rasuulka caleyhi salaatu wasalaam haddaba waxaa idinka digayaa cadaab daran qaabka u qaadsiiya subanuhu u fiirso waa qayb ka mid ah qofka intaad su-aal weydiiso markuu su-aashii qaato inaad u dhiibto haddaba fikraddii islaamku xooggu saaray aftahanimada oo nabiga caleyhi salaatu wasalaam baa tusaale u ahaa yani inuu ahaa shaksigii ugu aftahansanaa ana afsaxu man nataqa bidaad buu rasuulku yidhi waxaana shaqsiga ugu fasaxsan luqadda carabiga ku hadlo walidaalika rasuulku fagaarayaasha iyo golaasha la isugu yimaado iyo kacbada ayuu ka jeedin jiray hadallo aada u qiimi badan oo xikmad ku salaysan oo waxaad ogtihiin yowmu xajati alwadaac intuu rasuulku soo istaagay subaxii ilaa iyo gabaldhicii ama casarliiqii inuu hadal jeedinhayay hal erey ma soo laabanay yani xikmad iyo murti iyo hadal shaandhaysan iyo erayo lasoo miiray oo kasoo degaya maskax aad iyo aada u qiimi badan ay ahayd nabi calei isalaatu wasalaam isagoo dhiiri gelinaya abwaankii muslimiinta xasaan ibnu thaabit ayuu rasuulku yidhi xasaanow hawshaada wado jibriil baa garabkaaga ah mar kale yani saxaabiga loo jeeda cabdillaahi ibnu rawaaxa iyo rasuulka iyo cumar baa wada socday maka ayaa rasuulka ay gaaladu isku dayna u diidaan cabdillahi baa gabay tiriyey uu leeyahay yani gaaladu haddaad isku daydaan nin wax hor istaagtaan waxa weeye qoortaad ka jarayna khalluu bani lkufaara can sabiilihi alyawma nadribukum calaa tanziilihi darban yuziilu lhaama can maqiilihi wayudhilu lkhaliila can khaliilihi yani gaalada rasuulka haddaad hor istaagtaan waxa weeye luquntaan idin dheeraynana cumar bin khadaab baa ku yidhi cabdillaahow nebi maxamed hortiisa iyo xaramka ilaahay baad gabay ka tirinaysaa markaasuu rasuulku yidhi cumarow daa wallaahi hadalkaas